kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal lahaantiin meel walba joogtaan waxaan ilaahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha. barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kala horeynta horyaalada qaaradda Yurub iyo sida loo kala ciyaaray iyo qaabka ay u kala horeeyaan oo dhibcaha u kala leeyihiin ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha ee maanta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka, like-ta iyo comment-igana inuu dadaal mahadsanid saaxiib. haddii aad hore noola joogtana like-ta iyo comment-iga sina share gareey barnaamijka si uu u gaaro qaybo badan oo dad asxaabtaada ka mid ah si ay markaasi qayb uga noqdaan daawashada barnaamijkeena. mahadsanidin. aynu ku bilaabay horyaalka Serie A dalkaasi Italy ayaa waxaa markaasi laga ciyaaray 5 kulan ayaa laga ciyaaray waxaana kala horeynta hoggaanka 5 kooxood ee ugu horeysa aanu ku soo qaadan doonaa ay ka mid tahay kooxda Napoli oo 15 dhibcood leh oo ay hal kulan luus gareysay iyo sidoo kale kooxda Roma oo iyaduna 15 dhibcood leh hal kulan ay iyaduna luus gareysay. sidoo kale waxaa ku xiga kooxda Milan oo kaalinta saddexaad ku jirto waxayna leedahay 13 dhibcood waxa ay markaasi luus gareysay ama ay bareejo gashay hal kulan ayay bareejo gashay. Inter Milan ayaa iyaduna 2 kulan laga badiyay oo markaasi waxay leedahay 12 dhibcood. sidoo kale kooxda Juventus ayaa iyaduna waxay leedahay 12 dhibcood 3 kulanna bareejo ayay gashay. haddaba kala horeynta horyaalka Serie A ee dalkaasi Italy waa sida aan ku xujinay. sidoo kale waxaanu markaa soo qaadanaynaa horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga. haddaba La Liga iyo qaabkii loo kala ciyaaray ayaa waxa ay tahay Real Madrid ayaa waxa ay hogaaminaysaa horyaalkaas dalkaasi La Liga waxayna leedahay 21 dhibcood halka kooxda Barcelona iyaduna markaasi ay hogaaminayso ay ku xigto kaalinta labaad ay fadhido waxayna wadataa 19 dhibcood oo ay sidoo kale kooxda Villarreal ayaa iyaduna waxa ay tahay kooxda saddexaad ee hogaaminaysa dalkaasi Spain horyaalkiisa La Liga waxayna wadataa 16 dhibcood. waxaanu sidoo kale ku soo qaadan doonaa kulamada ay laga ciyaaray dalkaasi Ingiriiska iyo waliba inta kulan la ciyaaray iyo kooxaha kala horeeya sida ay markaasi ay natiijooyinkooda ku gaareen. haddaba 7 kulan ayaa laga ciyaaray horyaalka dalkaasi Ingiriiska waxaa sidoo kale iminka hogaaminayo 16 dhibcood ku hogaaminaya kooxda Arsenal. waxaa sidoo kale ay kaalinta labaad ku jira kooxda Liverpool oo iyaduna 15 dhibcood leh. sidoo kale waxaa kaalinta saddexaad ku jira Manchester City oo iyaduna markaasi 13 dhibcood haysata oo iyadu markaa madaxa kor u soo qaadatay. haddaba horyaalada dalkaasi Ingiriiska iyo waliba Spain iyo waliba Serie A dalka Faransiiska iyo waliba dalkaasi Germany Bundesliga laga ciyaaraa ayaa markaasi waxay yihiin kuwa iminkan kooxaha ugu tunka weyn ay iminka hogaaminayaan kooxahaasi. Bayern Munich ayaa sidoo kale Germany-ga hogaaminaysa Bundesliga-heeda oo dhammaan kulamadii ay ciyaartay ay wada badisay. haddaba sidoo kale PSG ayaa iyaduna sidoo kale hogaaminaysa kulamada dalkaasi Liga dalkaasi Faransiiska ee Ligue 1. waxaa sidoo kale markaasi la ciyaaray dalka Saudi Arabia oo ayaguna horyaalkaas iminkan oo markaasi hogaaminayo kooxda Cristiano Ronaldo ee Al Nassr oo markaasi kulamadeeda dhamaantood ay wada badisay. saaxiibayaal waxaa markaa idinka codsanayaa haddii page-ka ama warkeena oo ku qanciyo fadlan sii share gareey si ay asxaab fara badan oo adiga kugu xiran ay u gaarto barnaamijkeena meel dheerna muuqaalkeena u gaaro si aan u helno viewers fara badan ama dad fara badan oo daawado muuqaalkeena si muuqaalka oo kor noogu soo kaco. asxaabteeda aad baad u mahadsantihiin like-ta fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad like-ta iyo comment-iga ugu dadaashaan siina share gareysaan barnaamijkayga. haddii aad ku cusub tahayna follow dheh page-ka oo saaxiib ka dhigo page-kayga si aad u hesho mar waliba macluumaadka dheeriga ah ee aan halkan idin soo dhigayo ee ku saabsan ciyaaraha, qaabka loo ciyaaro iyo waliba natiijooyinka ay kala gaareen kooxaha. sidoo kale oo kama marnaa barnaamijyadeeda kaftanka ciyaaraha oo koox mar ayaan ku dhigi doonaa oo aan markaasi ka jafaynaa boorka. haddaba taageerow haddii aad adigu tahay ama maalintaada ay ku soo aado in kooxdaada la jafo
hanoo qaadan wax cuqdada ee markaasi sii sheergalaya barnaamijyaadkeena sababtoo ah waxaa ka dambeeya kooxo kaleento oo dhowr ah markaasi oo ayaguna la jafi doono ceebahooda iyo weliba meelaha ay ka liitaan ayaanu soo qaadan doonaa kooxaha aad baa mahadsantihiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan fadlan haddii aad ku cusub tahay inoo sii sheergaray barnaamijyaadkeena xigana si aa markaasi qayb aad ugu noqoto waxaan idin leeyahay fadlan لايكتي نوجو دالا يا شركة فلونا هنجي لابنا سحبتي إذا أدت مهستهين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصاحبكنا محمد أبو كرباريون له تانية دب أبو كل مدونو صدا يو النبات كليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.